السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكيمبا كنا سود وهذا برنامج كرتدة بالشدة وعلى بحث هنا كلات كداوتان تي في عالمية ساب تي في مرتدة تضباط كان وعملت كميدة دائرة مجال بورع أسماء أحمد إسماعيل وربي كبد بادية دون لجور شيء أما ديارة هو يرتي بدل الحديث يجوا كسر كعت من ذلك يمان كنا سيجدا السودان وحنا نصيبه يلاني إن أنا أسماء معناتها كوريسانو عدد السود عادي dadkii ku badbaaday dadkii ku dhintay ama ku geeriyooday Ilaahay naxariistay iyo waliba dadkii ku dhaawacmay halka wixii ay xog kaas aan asbaqni ku soo dhaweeyeen barnaamijka kartida bulshada iyo Saab TV aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadaatiin bahda Saab isku duuban awalan Ilaahay baa mahad iskale subhanahu wa ta'ala in kulan siiyay ama aynu ku koobtanayno ku kulanay isugu keenay marka xigta saad sheegtay magacaygu waa Asmaqani Axmed Ismaaciil aad iyo aad baan u dhawahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahadcelinayaa martiqaadka TV-ga Saab ama santima Asma waxaad nooga warantaa safarka dheer ee aad gasheen ka baxdeen Burco ilaa doonteedii ku haleeshay markaad Yemen ka timaadeen bal safarkaas sidoo u dhacay iyo sidoo kugu dhashay iyo dadka la haydeen bal nooga xog bixi والله إلهي بام هاد سكال سبحانه وتعالى يقول الشيء صباح وبن يسوون من أنا صاحبنا هاي هالكن سوق وين دحدي سمارة كويسة إسلام مركز صبحي أنا جو يارسن أو كلوين تجينا إن أنت عسانو يمي إن أنا هاد سكرنا صاحبنا إن أنت حقولي لو بحنا الحلم ريحة أما وحي كادي يارد يرجرو دو أدو تتبع شو كده هيدا إن أنت يضو أدو أدق وديدي سه أي هادنا إسلام مركي بعض يقول له بعشي لا استحش كتير سوق رعدي ديارجرو اسمه وين ديارجرو إلهي بما تذكره بشيء لبعض 17 أنا كان كبحنا شنو يتبين كيدي ملا كوي تبين كيدي لبعض يكون يتبين تون كلا بشيء شنو يتبناد بشيء لبعض شيء يتبين كيدي عنده هل كان بانو كسفرنا أنا قول بدي ذهب لدو كلية إلا ما هل كان إلا ما يجروه نبت قبان كترني جروه حكمان ورق إن شاء الله وان دافني مركي عم تجني محاولها aan garoow dhaafnoon boosaas markaa ku sii jeedno wado u dhaxaysa ama magaalo u dhaxaysa boosaas iyo garoow oo markaas qarri leeyahay meel kantaroolkaasi waa laba qol oo jaajuura isagu ma laha wax xaafada ama tuulo u dhow balse waa kaligi iyo askarta ku sugan halkaas ayaan lagu qabtay markiina la yara weydiiyay adigu ilmaadeer walaalaan habaan hablaha isku lahaynayeen inta kale haddana markaan askarta arkay askar waxaan qaab yar duwan oo aan ku arkay garanaysaa gobolka iyo Hargeysa meelahaas oo kale oo dhaadheer oo aadaan u yaranahay ayaa waxay iga soo booday markiiba ilmaadeer baan isna iyadina xitaa walaalaan ana waxaan dhahay ilmaadeer baan okay markaa uu gartay in inta aad u adagtay laakiin anigu aan baqayo marka xukuurinantayga inta bahadlaysan maya magaca markaa waxaan ku wax la yiraahdaa Asma bare markaa si guuri Asma bare Ismaaciil haa shaag waaye hubtaan ku garaaca walaalkay baa la soo garaaca marka waa inaan aan si diyaarsanay oo adigu aan iskaranayno inaan giyo la soo garaaco war habla meedi gamqay ha ya ka maqan inaan Ismaaciil leeyahay ana naxintii aan bar sheegtay Axmedna markaa inaan ku sheegay galbteel gumba leeyahay marka ninkii gaariga wadooga bajinayo mar balaha adaa baay ragaasan maanta u xarday Asmaaciil adaa baayday hayay ayuu nin wadaado gaariga saaran oo gaar li soo digo wuxuu ku war habla eerana garanaya habriirtood bay ku socdaan macna iska dhaaf hablahan okay waxbayaan hadalku ku daalin ninkii uu soo fasaxay alxamdulillah boosaas istabtana laga horeeyay laba habeen baan joognay magafihii Burco nagala soo hadlayay ayaa boosaas noogu yimi markaas lagu hablahan qol xaggan ay xishiin ilaali inankii baan ka xeeyay adigu habeenkii halkii doontaan la geeyay ilaahay baa maad kale inanka nagu mutagin waligii wuxuu gabadhu ma raacin halkaas oo lama sugnay qaadhigu baan tigirka u jara saas ku tagtaa dikada ama macnaheedu wada adoo halkii labadeeda saan u ahayn baa la keenay laba inan oo Hargeysa ka yimi inan kamid ah Nuurdiinka iskuulka Nuurdiin la dhigtaa diyaaradda Hargeysa ka soo raacay boosaasu saaka 10kii kaga soo degay magafaana wada isaguna waa tahriibay inanka Muxtaar baa la reeb Boorama waan israacnay 101 Ethiopian aan raacnay baddi bana lagu guray markii labadii habeenimo ahay Soomaali waxaan ku nahay labada hablood iyo wiilka marka laga reebo ragga doonta wada oo iyagu Soomaaliya alxamdulillah iska safarna isla boosaaso anagu aan ka dhaqaaqin motor kamid doontii baa qaraxay waan iska socon laba habeeniyo maalin baan ku jirnay baddi alxamdulillah Yemen baan tagnay Yemen marka doonta doomaha waa laga qubaa dadka oo waxa ay qabsanayay Yemeniinta
marka ninka doontiisa ka qiimo badan dadka saaranba markuu arko meel fogadoo soo socdo buruusinka ku tuuraya markuu dhulka doonta ku qabsamatana waa laga daadinaya marka isma saddexda Soomaalida waa loo yara gargaaro kun yar baa la dejiyay wadada laakiin lagu dhex dejinayo biyo laga ku maraya waad ka baxaysaa ee lugtaad ka qaado meel fog oo hay'adu ka arkin marka lagu gudijo Itoobiya bay haay marka anaga Soomaali bay noogu yaranayaan qaar aan garanaya waa la isugu jiraa iyagu muhiimadu waa inaad doontooda faraaqtaa markiiba kala jeesataa alxamdulillah inaan Itoobiyaano Soomaaliya garanaya ayaa gacmaana qabtay aniga inantii kalaba inankiina wuxuu soo dheereen inaan weligood gurbi hooyadii ka bixin yar oo nagaba yarna uu ahaa marka waa la soo raacnay alxamdulillah waxaan qabatay hay'adii adigu malaha waxaan lugeynay saacadaad badan hay'adii markay qabatay biyo waxba la siiyay hay'ad baan lagu xareeyay hay'ad watay hay'adan UN UNDP markii iyadoo waraaqaha waxa ku jaraysa maabenkii baan u hoynay halkii aad muharrib oo dhan baan yimi waana la kala doorsaday lahay laakiin mid baan anagu markii hore ku soconay kiina soo diray boosasana ahaa reed adigu hay'adda lafteedu iyadoo ay jiwanada lagu jaray magacyada laga bixinayo ayaa waxa hoos cararaya magafeeba la socota ama magafaasa fiican ama halkan mar ama sidan mar waana hay'adii dhameed iyadu ku jiraysay warqada aqoonsiga ama ogolaashaha inaad wadanka ku joogto magangaliyo hay'adda ayaa iyaduna magafa oo waxaan oo nin midba magafa lacag siiyo u shaqeynaya wixii waxaan oo yimi waana la qaad adigu muddo shaaban magafa gurigiisa ku noolna taraag ba halka laga qaaday 12 subaxnimo halkan ku socono alqarasa waxaan alcaara waxaan la geeyay subaxii dambe salaadii subax alxamdulillah halkaas aan nabad ku tagnay Axmed waxay ugu maqaala markii alqarasa tagteen inay halkaas Soomaalida isku qabsatay wal xogtanas xerada gudaheeda ha Soomaalida isku qabsato way dhacaysaa Soomaalida wadagto halkan ay joogaan bay u kibir badan magafa marka gudihiisa ama xeradan iyo magafay turjinta Yemen aad gasho wala kala xoog badan yahay marka hadii jarina masanka ka qabsanaya adigu burcaha u bataan gobolka burcaha ka soo jeeda aad baa meeshan isku dhaxlaynaya qofkii isagu iska ururiyay hablahooda artaynta badan habluhu ay hablahooda iska dhinac raacaan wad amaan helaysaa laakiin haddaad marba meel soo dhaxarato marba inamada u tagto adiga dhib kaaga imanaysa laakiin marka hore muhiimadu waa inay haddaad doonayso inaad wadada rabti aad raacdo وين هبلها هذا تكتيات كده حجرته هل كان واحد كل عنا كرتك وأنت كنت شوكته حلم عم ببحثين أسماء أو يمن كتكتين هذا أيوة بند أنا قوم ورهاين بنا اللي ديار جروبة ملها كودي يبركي بلاش نلقو جرو دوين نلقو جرو هذا الحمد لله نبض بان كوكرناي ونسك شراغناي تصبان وبحنا أنا الحمد لله إلهي وكيشانا حبين كي بدنا كترنا صبح waxaanu ku fuulayn 140 qof waayo waxaad ku garan kartaa wax in baqar rag baa wata kooxda noocaas Yunus baa wata tiradoodu waa inta kooxda noocaas ilka casa wata tiradu waa inta Cabdi Fataax baa wata ayaad maqlaysaa moogtaa marka dambe waxaad maqlaysaa total imisay noqdeen isu geyn wala isku darsanaya 140 waagu markuu bariyay alxamdulillah dadkii soo arkay inay nabad qabaan oo de meetintii iyo intii nooleedii wixii bay saaran yihiin wada nabad qabaan gobolku markuu soo dhici doono adigu 40 meelaha waxa noo timid diyaarad 40 galabnimo qorraxdu markay soo jeedo diyaaradan cid la garanayno anagu doon baan saaranahay dad iska dawaqsan baan oo xalay oo dhan ku soo jiray biyaha maantana ku jiray inta badan dadku ay iska wareersiin iska unqaacayeenba diyaaradu sawirada naga qaadatay sawirada diyaaradu inoo soo dhawaada sawirada waan aragnaa abaar shantii bay nagu soo noqotay sidii sileeg bay nooga qaaday mar walba sawiradan bay soo hubinaysaa baa la oranayaa markii dambe deena waradu waa nagu dhaceen markii lixdii ahaydna waa noo timi diyaaradaas 3 jeer bay sawirada naga qaaday isla galabta waa galabta habeenkiina la indoonto abaar 8 habeenimo saacad ban xiran saa markan marba u shido u eegay ay bululeed cirka kurdi ma fahmayno bululeedkan waxay u ridayeen waxa loo ridayay midna dadkayga Soomaalida meesha saaran adigu markay bululeedkii dhowr jeer riday gantaal been ku soo riday ilaahay markiisa biyo ku dhac dhacay anaga oo ka badbaadin markii bay rasaas bilowday والله wax aad looga xumaado darsaastii markay bilowday diyaarada lafteedii ayaa habeenkiina noo timi marka dadku ay isku hayeen diyaaradu ay nahagaysay markii hore saaruq la soo riday markii dambe laakiin iyada rasaastu ka soconaysa markii doontu soconayso mar walba diyaaraduna daba taaganta
saasuu hubkuu soconaya oo gantaalkii ku dhigay gantaalka naguma dhicin waayo hadduu gantaalka nagu dhici lahaa doontaa wada go'i lahayd annagana lama wada arkeen waxa weeyaan axmed hadalka ku daadin walaalo rasaasta in badana socoto dadku ha wada qayliyaan naxnu soomaali anaa saacidni anaa masaafir aduu hadallay adeegsanayaan dhawaaqooda aad u xun yahay oo macnaheed marna ilaahay ay baryayaan marna ay leeyihiin dadka noocaasana marba ay dee markaasi iscadaynayaan ay yihiin dad shicib oo iyagu markaasi waxba aan wadin rasaastii marka adigu 2 saacadood nagu waday naga joojiye haddana waa lagu celin adigu meel 12 la gaaray waan la kala saareen waxa dhimashada iyo waxa dhaawaca iyo wax kale ayna laga dahay aniga kula hadlaya waxaan isla wadnaha kaaga taala habeenkii oo dhan waxaan la wadnaha soo dhiigan igu daadanayay iyo meydkan isaaran iyo dhibkan haysta ayaan moodaya wadnahan aan isla igu ku daloola inay wax igu yaalaan dadka halkan qaar ka qaynaya waxay leeyihiin la lugtaan oo waxba ma goona oo dadku way salba baqeen inta dhimatay inta kale adoo waxaan hadal kugu daalinay markii 12 ka joogsantay ninkii noo wadayna waa gacan laga gooyo lug laga gooyo adigu dhaawac xun yahay ba kuwii carabta ahaa meydkii bay si saareen soo qof markii meydkii saaro xabadu ma soo dhaafiso ama hubku ma soo dhaafay oo meydkan buu ku qaboojismaya anagu laakiin garamayna meyd baa la saaraayo dadka aan waligood arag meel rasaasi ka dhacday baa noo shicibka iska yaryar dhalinyarada hadee macni aan dhahay dad dhalinyaro ah oo ayagu meel dagaal ku dhacay inaan arag marka carabtan way fahmaysaa iyagu maalin walba wada maraa ama waa meelaha iminka dawladaha shisheeye ay rusheeyaan waa meel aad iyagu iminka dhibka u aragtay marka adu waxba ma gaarin saddexdina kale marka doonta ma carabtii waday ba soo carabi dara saar ma waa carabtii noo waday oo afar ayaa kii waday la dilay saddexdii kale hururday ayaa iyagu soo bixi doona marka dambe oo dameydkan is saari doono oo iyagu isbadbaadinaya marka 12 ka rasaasta joogsantay waliba aad waxaan uga sii naxaan xasuustaa inaan Ibraahim la dhowr argisa uu kacayo wuxuu yiri war hablaha ka dhex kaca war mariyaa tuura war macni raggan tusadayna dad dhib lahayn intaan hadalkiiba wada lagu dhifto soo dhaca inaan kala kacayo markii isaguna afaa jooga jimcaala la dhahaa naagi baa ku barortay hablii aan dhahay meesha joogay waa jimcaala uu kaca war maradu jimcaalna saa u wadaafiyay isna jimcaalna waa soo dhaca isagoo dhinacaas la qalalayo maskaxda ay goysay xididada neerfaha way arkayaan qofka kacay iyo dhaqdhaqaaqaaga waa la socdaa marka diyaaradu way helicopter baa way taagan diyaaradu dusheeda taagan marba taas way dhaqdhaqaaqaysaa way aragtaa waxaan sameynayna aduu waxa uu inaga dhamaato dhiigsa noogu socdo dadka dusheeda hurda dhamaado ama kuwii iga soo horjeeday aad waxaan u sii xasuustaa aan uga naxaa inama horteeda fadhiyo la 15 oo reer Barco badnaa maalintii aad baan xanuunsanayay marba waan muqaacay marka inamadaasi waxay gulaayeen marba asma iska jiifso macni adigu madabad wareerso kabadani waxaan eegin wixii inaan saayiminka ii soo horfadhido markii xabada joogsatay qof meeshii mu fadhiyay wax badda ku daatay iyo bay noqdeen wax doonta ku soo daatay oo markaas ay dhintay okay marka haddaan sidoo ka sheekay aad baan macni dareenkaygu isu bedelaya maadaama aan ahay qof aan goobtii taagnaa waan ka duwanay qof goobtii magaranaysa isagoo warbixin bixinaya marka waxa dhacday markii saacadu joogsatay dadku aad bay u baruurinayeen kuwa dhaawac warbiyana siiya war nafta naga baxday war halkan noo xidha marka ummaddu way isu kacaysay waa lugta loo xidho qof biyo lasoo sii dhiig baxa in aad waxaan u xasuustaa ilmo yaro ilaa 13 jira carafaad baa lagu magacaabi jiray isagoo nafta ka baxayso ayuu doonta saacaga ula dhacay inana dhibta uu ka haystay marka ilmaha yaro adigu aad iyadu way ku sileeday qof walba way ku dhacaysay way ka boodisay maan arag qof aad ku rafaaday isagoo nolosh ku jirta laakiin carafaad waxaan arkaynay carafaad oo naftu ka baxayso oo aad noo sakaraaday ilaahay baa mahad kale inteedii badbaadisay ilaahay uu naga daayay doontii waxaan isku afgarinay Suudaan lagu shubay aan Yemen ku soo noqno magaalo xideeda la yiraahdo caasimad xideeda la yiraahdo iyaduna dekedda aan imaadno oo iyagana ay xootiyiintu ka taliyaan halkaas aan markii saacadii subax la eedaamay iyadoo la wada ogyahay adduunka wixii hay'ado joogan meesha ay tubayeen qaar baleeyeen waxbaan qaabilsana inteedii nabta qabtay markii laga soo guray intii meydkaaba laga geeyay dhaawacyadina dhakhtarka loola cararay waxaan ka mid noqday dadkii markii ay wax noqdeen dhakhtarka loola cararay alxamdulillah waan hadlay iyadoo la igu weydiinayo namadiisa wax noqdeen saa la idin laayay alxamdulillah kulleed anigu markaasi ooyaan hadal badan bixin karaynin waan ka warbixiyay aan yar dul istaago dadka imsa dhintay imsa geeriyo imsa noola walaalo 145 markaasi aan ku ogeyn fiidkii markaan baxaynay
waxa dhintay anagu aan qarsanayn haddana dhalinyaradii markaasi hadheen noolayd 45 naga baxay laakiin kuwa xaqiijinay iyagu ka daba tagay meydadka iyo hay'adaha baara ay yahay 7 qof ay noo keeneen meydkoodii marka marba ay nagu soo noqonayeen imisa idiga maqan marba dad baan u yeedhinaa dadku magacyada bedelayeen oo qofku markuu Soomaaliland ka tago ama Soomaaliya wuxuu diiday hadii laga daba yimaado saan xirooyinka loogu qaban marka anigoo kala asma markaan ahay markaan xirada galo hay'adda UN-ta waxaan qoranayaa Zainab ay hadhow haday dhimasho timaado Zainab baa reerkiinanadii Zainab kuma yaqaanaan xawa ama asma lagu garnay marka dadka inta badan meedka mar dambe la ogaaday ama ku noolay la ogaaday magacyada inay khaldeen baa ciida ka badnayd laakiin oo reer 45 qof baa naga maqnaa iyaguna 60 qof ay soo saareen 7 qof baa la waayay in meeshii magaceedina la helo muuqoodina la helo ama midkoodii ama Soomaali kaliya ku wada saarnay doonta mise waxay la saarnay Ethiopian may walaal waxaan la saarnaa Soomaali kaliya nahay wax Ethiopian lama saarnaa ama waxna taraxaba markaad soo laabateen ku soo lagu yiri warbixin maxaad ku warbixisaan alxamdulillah wallahi wanaga kale markaan dhakhtarka imi ayaa xoogaa la wareystay imisa haydeen imisa dhimatay wax yar iyadoo BBC markaa ay wareysanaysa marka warbixin badan ma bixin laakiin waxaan sheegay in ma badan iyo habla badan la laayay in xaq darro lagu laayay in dadka la laayay la cadeynayo inuu yahay xulfada Sacuudiga hogaaminayo markaas sidee dadkaasi talaabo sharciye looga qaado maadaama ay dhacay qaladkii ay sameeyeen oo dadkii ay laayeen loo gurmado ummadii dhimatay iyo ummadda dhaawacaba lagana day uu Sacuudiguna ka garbaxo maadaama ummaddan isagu wax u geystay wax la la xisaabtama hadii ummadda ama Soomaalida noqoto ama Soomaaliya noqoto ama Soomaaliya noqoto in la helo qasabada wixii ayaan la yeerto imika waxay ugu maqaalaa in hablihiina meeligi inmadina meeligi la jalagu xidhay markii dambe la bilood marka joogtay markii dambe la idin kaeeyo leediri Yurub baa la idin kaxaynayay meel kale oo jeelalaad ad gasheen bal qisaan ugu war wallahi Ahmed waa saad sheegtay anaga waxaan la geeyay meel معين أما هايد أي أم لريتو بيان كقبلسن حضرنا يبلغ كليا أما إنما أنت دعوانا صعتها هذا لقى عقوانا ما تشيسس كما حقول لها أما ساسو كلا إنما ساسو دعوات حلوسة إن من دلاب الوضعيين كترني أنا مقيمك إنما ذون تشيلك عادي كترين أو أي أدوس حريري وراغانا لقى قريتشري مالين والمركوها قبريو وإحنا لو نشري هايدا نوع صيدين ديارة هايدا نوع صيدين ديارة يدو هايدا أي أم يهايدا UN يهايدا إيمانا يورد نو إيمانا ينور بحمنا قبل حنيان يدو دسكسان يدا جرنيان وكودا وعسلين ملبا ليدين جينيا أين مركزي دي وح ليدين قبطو أيانا لصور إنما دينا الله بس لقو صور أنا جينا بس نلقو الرأي تراك دير بانصوغ الله وهرجيسة يبرعو كلا صنعاء يحديدي مركا وحنمي صنعاء مركا نمي أنا ساكو كلا soo baxnay halkan ku filayna meelaha hay'adii aan ka nimay hay'ada ka wacan ama meelo wacan la keeno oo dhaawac serious aan wadano waxna la geeyay meel jawaasaad kala dhaw oo intii garanaysa baasaboorradii waxa lagu sameeyay ama dadka lagu qabto baasaboorka khaladka lagu xiro oo meel aad gud koosteeda la meel aad adag markii gaariyadana la geliyo albaabadu bana loo xiro gala leeyri marka inta yadii socon kareysay rasaas markii lagu waabiyay way wada xaroodeen intii dhaawacna la kala tagay marka subax bay yagina loo saxreeyay xagan biya ka cabnaa baan miri anagoo social media iminka aad ka heli doonto anagoo ka hadlayna oo u baaqayna madaxweynayaasha marka wadanka haysta online biyo meelan ka cabno ma haysano Suuriya ka cabana lagu warbiya marka Soomaaliland waxa haystay Axmed Siilaayo Soomaaliyana farmaajo marka aniga laftayda la hadlay madaxweyne farmaajo oo jeelka dhexdiisa wariyaashu ugu yimaadeen aniga inaan macallin lugaan marka labada saa hadalay oo sheegnay markaasi in safiirka wadanka Soomaaliya oo fadhiya Yemen Axmed Suudani oo laga bedelay markaasi markii wax uu qaban waayay in isaga laftiisa inda wax laga qabto maadaama aanu isagu warba ka ahayn wadankiina ma soo gali karaan وحوتين بعيسى الصومالي مسوا قريكرتو هذا نعيد مصادر كورونا ما يماذا أنا جمهور هلا وحن قبنا نبكي وين بناسته تولد الصومال لأن زيادة عفت وما نصادر سنة ما دام أنا نوركين بعد شمال لأنه مريسي الصومالي يوم بدأت كوي درسني هذا لك وده هذا الشيء مركز جكتي يدوم بقى قبل سنة إن الله 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 حين هذا الكود لأن هالك السرعي وحن قبني ولا نبرر إن هبلا درعي هذا غير حساره إن تذكر الله يو إن ما ذكرتوني لو قبصته إن بدي بلود بدقال يدل يدق لجوه هي تتكاسي معلوم والبنان ميديا كهذا الله الحمد لله هوس انت سoo qariyaan adigoo maryaha sucaad xiran ayay soo qariyaan in kamarad iyo waxa alaab baan loo soo iibiyo moogta cuntooyin iyo waxa dadku
suuqa looga keeno markaa way soo galaan oo dadkan baan wax sunahay markaa alaabooyin wax baan u sidnaa halkaa ka eega la dhaha qaarna waa loo furo xidhan dadkan lagu aqooniyo dadkan baan waxnaha markaa lacag iyo waxaan soo ururnaa wax baan u geeninaa adigu waxay ku soo galaan marba kaartada ay ku soo gali karaan wada Soomaaliya markay soo galaan xidhan hooyo Mariya ka hadlo bal u sheegtay dhibka haysataan dawladda Soomaaliya ama dawladda Somaliland oreedin kasto dawladda Soomaaliya in la hadlayay on tir Somaliland cidiba la hadlaynin waxbeen hadalku ku daalinay safiirkii oo laga bedelay safiir Soomaaliya waxa soo magacawday Axmed marka dhawaaqeeyay codsiga kadib baa la bedelay yar kadib baa la bedelay Axmed Suunaan xilka waa laga qaaday in waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa Cabdullaahi Shuuriye oo isagoo markaas xilka loo soo magacaabay isagana la soo hadlay toos taleefan qadkan oo la soo xiriiray diyaar garooba isbuuc gudihii markab iyo xolbaan idin diyaariyay wadankiina ku noqotaa waxa intayna wadanka ku soo noqday dadkan ay dhibaya waa Yamani marka kuwa xoutiintii ma soo xoutiintii dadkan marka xoutiintii Soomaalida isma tusi kareen Soomaalida madaxda aan isma tusi karo oo Soomaaliya waxa la socotaa adan bay la socotaa iyo kuwa maxaafidka dawladda maxaafidka kuwa noo macaaradkii marka ma soo gali karaan iyagu laakiin way hay'aday soo diri karaan wax baa la sameyn karaa adigu dadkan waxa caawimaada dawladaha ka soo gaadhay Soomaaliya ma jirin cid u ballan qaadaysay in dhaqaatiir la geeyo ama hay'ado wax uga qortayna ma jirin saan jeelku ku jirnaa dibka ay dagaalka u qabnay buu safiirkaasina la soo hadlay wili intii horeba sanadteed todobadii cisho gudaheed buu ku soo dhameeyay tabtiba halkii baa gaariyana laga garar cadan baana lagu keenay cadan markii la keenay dadkii dhaawacay waxay go'aan ku jirnaa hay'ad waxna la keenay meel adigu ay hay'ad leedahay oo la doon inta caawa lagu xareeyo in dees waxa markabka laga saaro marka uu dadka horeba u galwaa maadaama afar bilood jeel ku soo jireen dhaawacna ay dadku weydiiyeen meeshii galaan rasaas baa dadka dabada loo qabto qasab baa lagu xareeyay in yaacday oo la dhowr 20 way ka yaacday intii kalena way gashalkii subaxii safiirka aan weyn safiirkii baa qof walba halkiisa ku salaamay halkiisa ku raali galiyay maadaama uu waxba u awoodi karin kalgacayl inuu tuso oo qalbiga u dhiso oo markabka wanaag ku saaro ayuu damca safiirkii la subaxii uu nala joogay la duurkii intuu markabka naga saaray markabku nala fadhiyay sidoo uu nagu soo ambabixiyay dawladdan Somaliland waa dawladdeennii inagu aad baynu jecelahay dhibkoo markuu dhacay ilaa intii dambe horta waxaan aad uga xumaanay waxba yaan loo tacsiyadeyn oo waxay ahayd inay dawladda Somaliland noo tacsiidayso oo la raayo Ilaahay u naxariisto markii dambe in la soo dhaweeyay oo aadna looga horkaco maadaama ay dad Somaliland oo aad u dhaawacana oo waliba gacan shisheeyeen wax nagu dhiftay ama dad shisheeyeen laayin okay waan nimi Ilaahay baa maad kale barbaran ka soo degnay barbar markan ku soo degnay wax wasiira ama ummadii yaa samaan arag ummadii adigu barbaranimi hay'ad meel leedahay lagu xiray laba cishaan ku jirnay wax dadkii si hagaajiyay iyo wax dadkii xiriiriyay haatan inta dhaawac kaliya inta kala xoog ma baahna intii dhaawac ahayd maadaama wadankooda ku soo noqdeen maadaama gacan sheedishay xitaa waxay la xisaabtamay iyagii wax niyad u dhisay oo wax ka qortay oo yiri macnii anaga dadkaasi noo jooga aan hay'ad la barin aan wax kala qaban ma jirin sidii baan ku soo baxnay sidii baa goboladii ku kala tagnay marka wasaaradda arrimaha dibadda ee arrimaha qaabilsaneed oo barigaas saacadaha shir madaxda ka ah miidan sarag wasaaradda maan ku arag xitaa cid ka socota kama arag markii u tageen dadku wuxuu u buuri saacadaha shir waxa afar qof oo reer Bircaaba la sheegay markii lagu dad noocaas ah Yemen lagu laayay mad aad badan Soomaaliland maxaa ka qabteen maxaa ka qabanaysan umadaas wuxuu buuri umada Soomaaliland oo la sheegay ma jirto afar qof oo reer Bircaaba jooga afarta qof oo reer Birca ayuu kaga gaabsaday hadalkii wax alla wuxuu umadii soo qabtay iyo wax alla wuxuu umadii uu ka yiri ma jiro afar qof baad haydan reer Soomaaliland raahimse waxaan lahayn umada inta u badan waxay Soomaaliland adigu umadan konton qof gaareen baa hayda xaqaa umada darkaysa laba jibaan intaas u badan waxay Soomaaliland marka ma aragna wax gargaar oo umadii Soomaaliland dawladda Axmed Silaaye ka socotay markaasi ma arag markii ay kadib aan nimi kadib wax noo yeeray ama waxna la hadlay ma jirin tii barakacayaasha iyadu qaabilsan waxyaabaha dabada hay'adda UN ayaa iyadu ayaama lacag siisay dadkii wax siraaca iyo wax dhaqtara iyo umadu baahnay maadaama umad qaar indhala iyo qaar dhaawac ay leeyihiin kadib anaga dib u qabanay social media anagoo ka hadlayna bulshada iyo dawladda lehna umada wax u qabta inta dhaawaca imsa dhaawaca markii aad barbar ka soo degteen dalka timaadeen hal wiil oo la go'aan baan naga haray
25 qof ee dhaawac ah intii kala yimaadeen haday tahay laba qof oo lugala haday tahay dhalaan haday tahay gacmo la'aan haday tahay adu aad inta naafo badan ayaa mareysay hay-adii ma saragteen hay-adan dib u dejinta aan raahe qaxoontiga alxamdulillah wallahi markaan ka hadalay barculfteeda waxaan tagnay isla week kadib hargeysan isla bartii ku qabanay haddana anagoo ka hadlayna maanta inaan barcakadnimo hargeysa joogno marayaana dadkii naafadaha qaar ka mid kuwii kalena ay baqdin ay ka qabanaan waxba loo qabanaynin wadanka gudihiisa uu joogaa hay'adda lafteed ma tagnay markii social media cidii ka jawaab weyday Cabdikariin laftiisan 7 cisho ku sii noqnoqonay maalintii dambe soo Cabdikariin noo istaag waayay baynamada gudoomiyaha Cabdikariin Axmed Xanif bay kidinka wasaaraddiisa amaandho xafiiskiisa ku qabteen inama kamid ah TV-ga saab laftiisa iyo anagoo soconayna maalin walba oo ku soo noqonayna la hadal dadkii dhaawacay hay'adda noocaasaan ka soconaa intii isu ka yara taagay buu yiri xafiiska galo warbixinada iska qora xafiisyadii baan tagnay hoose warbixinadii baan iska qornay iyagii baan maawiliyay eegadu iska sii soo noqday hay'addan waxaan loo diray UN hay'adii baan u tagnay waana baadhay dadka waxay tirahaa inantan weendhalada dibadda loo qaadaya inantan waa sidan kale iyadana dibadda u baahantay inan biro ku jiraan ilaanka oo muddadii laga saar lahaa ay ka badatay marka adigu markii ayaan sidii nagu wadayna dadkina ay hargeysa joogaan oo qarash ku socdo oo gaariga la sii qaadayo inta yahay oo inanta lug tagal go'an maalin walba de gaari la saarayo teendhaala la qabanayo dadku de kala meel joogaan maalin walba qarash ku socdo cid wuxuu qabanaysana aanay arkaynin way ka soo haleeleen oo barax iska yimaadeen gudoomiyahan Cabdikariin Axmed Xanif markii aad wada kulantay wada hadasheen ballan qaadidii sameeyay wax ka fulay ma jiraan Cabdikariin ballan isagoo wada maraya inuu isu ka taageerto marka xafiiskiisa ka baxay anagoo inta soo ku sii noqonayna wadagto gudoomiyaasha toos looguma galo meelaha soo soo marmaraysa oo xafiisyada hore wax ka soo qoranaysa arjiyo lagu soo gudbinaya kuwii wali wax ka soo arjiyada ka soo qoto bal warbixinadiina la soo gudbiyo kuwii baa adigu dhowr cisho ilaa adigu aan bil ku qiyaasayo dhowr cisho bayaan oranay ay maalin walba nasii celinay dhakhtarka weyn maantana tan la soo saaro iskiin maantana tan kale hal celiyo iyaga baa dadkii $200 dib ugu baxay maalin walba faamiliyadii wuxuu noo soo diray wuxuu noo soo ururiya haddana soo cadeeya maantana kuwan adigu de iska meermeeroon alxamdulillah markii ay dadkani arkeen inaan macni social media waxba u qabanay dawladdiina aanay waxba qabanayn in ilaahay iska wakiishadaano macni niyad jab kala ku timi maadaama shisheeye wax ku sameeyay maadaama wadankoodii joogaan maadaama kuwa iyaga loo abwaanamaha ama arag abwaana wuxuu doodo ka hadla dhibkooda maanta hadii waxay dhacaan waxa jiray abwaanadeena way qayliyaan ka kacay markaaba maasooyin baa lagu cabiraa fanaaniintu ay ku cabiraan anagu ma arag dadkii inta leekay ummadda Soomaaliland ahayda cid wuxuu qabatay abwaanadu way ka gaabsadeen fanaaniintu way ka gaabsadeen madaxdii wadanku ka gaabsaday siyaasiyiintu way ka gaabsadeen haddii xuqaaladii iyo wadaadadii noqdaan xitaa ama dhaqamadii odayaashii dhaqamada cid dadka u hadlaysa ma arag asmaay markii aad dalka timaadeen dadkii kala caafimaadka qabeen dalka kala gasheen xog maxaa rasmi ah leedisay oo leeyahay dawladdaas bay weerartay hay'adda sirdoonka waxa in badan wala cadeeyay waxa la yiraahdo Sacuudiga waa taasi waa shakila inuu Sacuudigu ahaa waa ciidamada horta markii hore Sacuudiga gaabiyo waxaana fadhistaan meel baabanda la yiraahdo oo meelaha ay isugu yimaadaan biyaha adduunka hadii jeer ama biyaha casmeesha la yiraahdo ay fadhiyaan ciidankan ayagu wataan